وهاجاك داوديال مركل كوسو دوادا برنامج كمالين وناكسن أو توصي دين كيمانية مقالة مقدشو عاصمة أمة الصومالية حبناها حيسها بدن برنامج كوكو داون دوتان وحاوجوه الرئيسة دولة دالك مصر أو شاعسي إن أي حلين دونتو أما أي دحدحادين دونتو أي يرادين خلاف كودحية دالك الصومالية مدحديسة وقصر سريسة دولة مصر أيها شاعسي إن أي دانينيسو إن أي كل مسو مدحدة دالك الصومالية wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shukri ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in jaamacadda Carabtu ay ka qayb qaadato dadaalada dhexdhexaadinta dhinacyada khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hoggaanka sida ay qortay wakaaladda wararka Kuwait wasiirka ayaa sidoo kale ku sheegay bayaan uu soo saaray in cawaaqib xun ay ka dhalan karto dhibaatada hadda ka taagan Soomaaliya taasoo horseedi karta in uu dib u dhac ku yimaado hanaanka dib u dhiska qaranka Soomaaliya iyo in la gaaro ayuu yiri dib u heshiisiin qaran xilliga hiigsiga 2016 shirka Masar ay ugu baaqday Soomaaliya ayaa yimid maalin kadib xiriir telefoon oo dhex maray hogaamiyaha Masar iyo kan Soomaaliya waa sida ay qortay wakaaladdu maalintii sabtida ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Asiisi ay telefoonka ku wada hadleen sida ay qortay barta adeega warfaafinta qaranka ee Masar afhayeenka madaxtooyada Masar Calaa Yuusuf ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya Masar ayaa aad u daneynaysa xaaladda Soomaaliya iyadoo labada dal uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo soo jireen ah dalka Masar iyo Soomaaliya oo xiriir qoto dheer oo soo jireenihii uu ka dhaxeeyo ayaa imaan karta hadii khilaafkan ay xaliyaan in uu xiriirkaasi sii xoogsado sidoo kale dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyinka ka iman kara hadii khilaafkan sii xoogaysto waxa mikrofoonka la dhaxmaray wariye Liibaan Cabdi Cadow oo warbixin xiiso leh inooga diyaariyay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhibanaya sida ay u arkaan khilaafka madaxda ka dhaxeeya ayadoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu jiray khilaaf soo ifbaxay oo u dhaxeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa haddana dadka ku nool magaalada Muqdisho waxa ay ka walwalsan yihiin khilaafka sii jiitamaya ee u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inkastoo la sheegayo maalmihii la soo dhaafay inay socotay waan ku aadan sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa dalka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dadka ayaa sheegaya xilligan inaan la joogin xilli la iskhilaafo isla markaana looga baahan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in khilaafkooda ay si hoos u xaliyaan inta ay soo faragelin lahayd bulshada caalamka qaar kamid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo TV-ga Kalsan la hadlay ayaa sheegay walwalkooda ugu weyn inuu yahay in dalka Soomaaliya ay soo farageliyaan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wadamada caalamka wax dalkan ka dhacay oo u dhahtaagnay maanta xeerka aad taagan tahay oo maanta hadda aad taagan tahay meel laga filayo ma aha waxa ku socota maalintii Abdiweli gacantaadu ka baxo kuwa oo maanta gadaal ka reehayo ko jaarma bay la noqonaysaa la gadoomiyaal saxiixayaal oo la saxiixnayso wax alaale wixii dalkan soo galayna aad la saxiixnayso wixii dalkan ka baxayna la saxiixnaysaa noqonayaan kuwa dawlad goboleedyada oo dhamaantood waxay ku leeyahay ma aaminayno ra'iisul wasaarayaashii dabada ka galay war cadeeyay halku ma aamino wax ma aamino meeshii barxadda markay kula tagaanaysaasay ku leeyihiin in maanta khilaaf yimaado ama runtii la yiraahdo ma aragtay motion la keeno runtii looma baahnayn arrinkuna wuxuu maanta ku badbaadaya dalka uu ku badbaadaya wixii ummadda loo ballan qaaday in la fuliyo oo runtii maanta ay tahay waxa ka haray 22 bilood weeyaan waqti yar baa ka haray processka cusub ee iman doona in la fuliyo hadii laakiin ay noqoto maalin walba la yiraahdo yaani ma aragtay kan dib ha loo dhigo kan hal rido waxa noqonaysa wareer bay noqonaysaa waxaan ka codsaynaa madaxweynaha iyo wasaaraha labadooda mid kamid Soomaalida inay ku tanasulaan khilaafka iyo dhibaatada corruption badan keenaysa baaban waa keenaysa waxa kale keenaysa waxay tahay dalkan dib u buro oo ummadda is qabsato mid kale wasiir la iriyo waxa ma korinayo ama wasiir meel kale la geeyo maalin kasta iyo bil kasta ma fiicna dawladdu macnaha in la yiraahdo mooshin cusub loo abuuraa ama ninkii macnaha wax qabad la wala ridaa in la yiraahdo ma wanaagsana markii hore ku cilahayd in macnaha ninkii macnaha wax qabad lahay in la rido haddana mid cusub markaas koowa macnaha la soo dhiso waxa taas ilma haboona waxaan u baaqaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda ugu sarreeyda dawladda inay si bahalkii si dhexdooda ay ku xaliyaan khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wixii khilaafaad oo jira laga soo bilaabo dawladii Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaa dawladda Xasan Sheekh waxaa jiray khilaaf madaxda dawladda ay qoorta isla galeysay oo xuriyaaminayay shaqada dawladda
lamana oga khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha meesha uu ku dhammaan doono in baarlamaanka la geyn doono iyo in kale. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafkaas uu hadda yahay mid xalkiisa u dhow yahay maadaama mooshin baarlamaanka la geyn rabay gudoomiyaha baarlamaanka si waana uu gadaal ugu celiyay. aad ayuu mahadsan yahay wariye Liibaan Cabdi Cadow oo dadka la dhex maray mikrofoonka. iminkana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qadar yar oo adeeg bulshada ah.